دفعتي تمناد كقلم بدلت جامعة بدر وككونت 641 aqoon-yahan oo bartay علومta kala duwan ee jaamacadda Badar bixiso waxaana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha diinta iyo awqaafta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha banka dhexe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD culimaa u diin waalidiin ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar garyaqaan Mubaarak Ibrahim Aar oo ka waramay sooyaalka jaamacadda Badar iyo culumta jaamacadda Badar bixiso يوروبا ay tahay jaamacadda ugu ballaaran ee Hargeysa ku taalla numberka ugu tirada badan ee dhigtaan education numberka ugu badan ee education magaalada Hargeysa waxay dhigtaan jaamacadda waxay dhigtaan ereyo kala duwan education oo takhasusat daraasaad islaamiya iyo luqada carabiga education oo fiisiyoonada isagoo history geography magaalahantii وأنا أقول إن هذا الظاهرة ذكي الكثيرين ولذا كان في جامعة قصة تاعي الله أساسه وحكم له كل الشريعة يلا وأنتي كل الناس تاعي كل يكون سيهم لمن خبراء وأنتم طبعا جامعة بلاد المعلومية وPhD أي هو بديه xubno ka mid ah culimaa u diinka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Ali Waraabe gudoomiyaha banka dhexe injineer Cali Cabdillaahi Daahir ayaa ardayda halkaasi uga hambaliyay aqoonta ay barteen waxaanu u baahanahay inaan wax u barane inaad dalkan u fakartaan mustaqbalkiisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa beerihiisa diintiisa adduunyadiisa dadnimadiisa oo aad jiha cusub samaysaan علماء الإسلام كانوا حنا ويدي كتاب كمنهاج والشافعية كلها أيها واحد من المنهاج يا يقانا تبدأوا منه كلا فرية هما يقانا علمي أما فكرت قاعد برت وحا أقول ما هكذا براسك بحياة كدي مسوق قالنا أقول تسكرها لنا كعلمي كعنت بوهية مرنا أخرينية هدي جالس وهذا ماستر جلية كل شغل جلية أما الله عنها بقاطع من بلاش تلقى هو أنفعه كعلم لك عنك وهي وبرتي كاسوبا كسر بحرية وحنقوها مليها يا أردنا ليها بقول كوريا فرتا يوم هايت سبيشل هو يويك وما تقول هاي عليه إنه سوري هاي يا عروت تقولي كسر صار إلى شامع إلى واحد كبر سبحانه وتعالى عبود تاسقام دلتو يدين تروي هدية كبيران والد كون الله سبحانه وتعالى أشهد السنة وعن كل دار اليوم إلى أخلاق إلى لسان أخلاق تعليم بلا أخلاق تعليم معها أقوم بلا ديننا ما هذا ما كان سيقوم تعليم قف ولله كفلا ما أنتم برتي halkan noloshana waa qayb badan tahay mid ku shaqo taga iyo mid shaqadiisii hore ku sii wanaajiyaba waxa weeye qof waliba halkan nolosha uu qayb ka galaya ka horto ilaahay hay'ad fududeeyo waxaana loo baahan yahay dadaalka wadaan ee waxbarasho inaynan halkaa ku joojin ee sii wadaan sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda دكتور عبد الولي عبد الله الصوفي جبريل وزيرك وزارة الدين تي وقافته عبد الرزاق علي الباني وزيرك حنانة حولها يكلوميسيا مدن السعيدة الصلب محمد أياسي وذا شرا وهم بلياي أرديدا ما أنت كقلي مدلنا سي جامعة بدر مرحلة الله رب العالمين وزارة رمضان جامعة دميسين حقيقية وشقة ما هي القرارات قدرتها ما سكلا وفيها الإسلام intuu idin banaantahay fursadda noloshu maanta way badan tahay biduu soo ogaada aqoontaad soo barteen waxna xirfad bay noqonaysaa waxna waxay dhisaysaa aqoontiin iyo qaabkaad u fikiraysaan waxna hadda waxay u bedeli doonta waxaad ku soo saartaan marka weliba fursad baad haysataan ardayda qalin jabisay oo halkan maanta aan ugu nimi oo aanu inaanu farxaddooda la qaybsanno aan bartan u nimi waxaan fariin ahaan u sheegayaa
aqoontaa ay barteen iyo hadafkii ay lahaayeen qayb ka mid ay xaqiijiyeen oo cilmigii ay xambaareen. waxaan xasuusinayaa kow in cilmiga uu yahay ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aadamaha ku aaminay. cilmiga ammaanada ah inaad ammaanada gudataan oo naftiina ku anfacdaan oo aad ummadda ku anfacdaan, diintiina ku anfacdaan oo aad gudbisaan. hays odhanina jaamacad baa ka baxdeena shaqo taga, shaqada idinkoo wada cilmigu daal ma leh, lagama dhadhego, waa wadi doontaan. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu cilmigaas idinku anfaco, idinla kordhiyo tawaaduc iyo dhibirsanaan iyo maxaanku idhahdaa alla ka cabsi ee aanu kibir iyo ismoodmood idin gaadhsiin waxaa barateen. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan mudane cabdirasaaq khaliif axmed. waxaan u rajaynayaa ilaahay fadligiisa iyo galladiisa inay noqdaan kuwa waxbarashada ay barteen naftoodana ku anfaca, ehelkooda iyo intii tacab kulena ku anfaca, ummadda guud ahaan iyo dalkana ku anfaca, adduunkooda iyo aakiradooda labadabana u noqota madax baan ilaahay u weydiinaya. waxaan jeclahay inaan sidaas si lamid ah la qaybsado mas-uuliyiintii kala duwan inay iga horreysay, inaan iyana ammaano oo anadku uga mahadnaqo hoggaanka sare jaamacadda beder iyo horumarka ay sameeyeen iyo waxa ay ku soo kordhiyeen majaalka tacliimiga ah ee dalka. waxaan runtii la qaybsanayaa jawaaistii kala duwaneyd ee uu professor waarid aan halkan ka sheegay ee ay jaamacaddu ku guulaysatay oo ah wax inoo wada kordhay oo dalka iyo dadkana u soo kordhay, faa'iido weyn u yeelan doonta mujtamaceena. waxaan rajaynayaa in u noqon doonaan howlkoodada ay ku daydaan jaamacadaha kale mid waliba ugu raadiyo imtiyaasaadka gaarka ah iyo jaamacadaas ay heshay, intii haysataana ay si horumarayso, intii kalena ay ku dayato inay gaadho. intaasi kadib waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino ardaydii kaalmaha hore ka galay jaamacadda beder. waxaa ardaydaasi ka mid ahayd ardayaddii ugu sarraysay ee jaamacadda beder oo ahayd hibe axmed xuseen warsame. walaal ku soo dhowo dareenkaaga waa sidee maanta? waan dhowahay, magacayga waxa weyaan hibe axmed xuseen, waxaan ka qalin jabinayaa kulliyadda islaamic economic and banking ee jaamacadda beder. maanta runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo ardayda jaamacadda ugu sarraysa. runtii nimcadaasina waa nimco ilaahay, horta marka hore ilaahay baa mahad iskale, waana fadliga ilaahay. dareenkaygana lama soo koobi kara, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. iyaad u mahadnaqaysaa walaal? waxaan u mahadnaqayaa dhammaan horta jaamacaddayda, hadday noqoto dhibaatmatiyadeeda kala duwan, maamulkayga, macallimiinteeda. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidkay aabahay axmed xuseen iyo hooyaday. aad baad mahadsantiin, iyagoo tacabkooda aanan la-aantooda aan halkaas soo gaadhayn, ayagan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. sidoo kale waxaan bogaadinayaa dhammaan ardaydan maanta ka wada qalinjabinay jaamacadda beder, gaar ahaan kulliyadeyda. aad baan hambalyo u leeyahay. waa khadar maxamuud axmed iyo cabdicasiis cali nuur, telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan, caasimadda hargeysa.